ma ogtahay ubaxa aad arkayso quruxda ilaahay siiyey in ay tahay mid lagu dadaalay ee tacab ku baxay iyo juhdi fara badan. Ma aha shay iska qurxoonaaday oo indhaha laga eegtay kaliya ee aan waxba ficila lagu samayn. Ficil baa lagu sameeyey, dad baa kolkooliyey, daryeelay, biyo siiyey, daaweeyey, qurxiyey. Haddii uu ahaa lahaa mid dayacan oo aan la ilaalin amaba aan la xaq dhowrin, ma uusan noqdeen maanta shay qaali ah ee laysu hadiyeeyo, balse wixii lagu dadaalaa ayaa lagu dheefsadaa. Wixii lagu dadaalaa ayaa noqda qurux. Ogow, shayga ka quruxda badan ubaxan ee u baahan in la ilaaliyo in ay yihiin dumarka. Waragow, dumarku ubaxan way ka qurux badan yihiin, waxay ka macaan badan yihiin malabka shinnida, waxay ka macaan badan yihiin canabka. Wax walba ee dunida yaal ayay ka macaan badan yihiin, maxaa yeelay waa qayb ka mid ah jirkeenna, qayb laga abuuray oo ka mid ah weeyaan. Waa feedheena, waxaa laga abuuray dumarka. Waxaa la yidhi feerta markii aad damacdo inaad toosiso way jabaysaa, balse markii aad iska dhaafto oo aadan toosinteeda isku dhibin waxay ahaanaysaa mid sideeda ah. War ogow, dumarku in ay yihiin hooyo, walaal, xaas. Xaq dhowr, dumar hooyo weeyaan. Xaq dhowr, dumar waa walaasheen. Xaq dhowr, marna ilaahayna weeye. Ha xoogina wiil yahow, ku guursa xalaasha wacan. Ha xoogina wiil yahow, xalaal ku galmoo walaal. Midna iga xasuusnaaw, waa tale meel ku xira saaxiib. Xista dumar jacayl xoog kuma galaaye, xigmad iyo sasabasha xariif lagu hantaabaro. Xigmad iyo sasabasha xariif lagu hantaabaro. Haddii ay ku xulanay xamda adi ku diidaa, haddii ay ku xulanay xaawa adi ku diidaa, inta xoogta dabaq dheer ha ka xorin siidaa. War miyay xistaadii xaasidow damqanayn oo xaawuluulya deeqiyo xamdi adiga kula dhalan ku xambaarin hooyo. Haween xilahaadu noqon. War xaq dhowr, dumar hooyo weeye. War xaq dhowr, dumar hooyo weeye.